Hormuud Cable TV waa hilka shacabka. tartankan oo sanadkiiba hal mar lagu qabto Somaliland ayaa maanta si rasmi ah uga furmay magaalada Hargeysa waxaana ka qayb galay in ka badan 200 orodyahan oo badiba ka kala yimid gobolada Somaliland waxa iyaguna orodka ka dhex muuqanayay orodyahanno ka socday wadamada caalamka kuwaas oo natiijooyin fiican ka soo hooyay hase yeeshee labada orodyahan ee kaalmaha koobaad u galay orodada 40 mitir iyo 10 mitir ayaa ka socday gobolka Awdal ee magaalada Boorama ugu horreynna waxaa dareenkooda cabiray qaar ka mid ah orodyahanadii kaalmaha hore ka galay orodkan maanta farxad weyn bay tahay in dadaalkaygii in badan halmowjay inaan maanta soo bandhigo aad baan ugu faraxsanahay waxaan ku faraxsanahay saaxiibada ila aalmitiin 10 kiiloomitir baan ordi jiray laakiin 42 maanta ay ku horeysay inaan ordo marka waxaan u mahadnaqayaa macallinkayga Cabdirashiid oo uu suurta geliyo macallin Ingiriiska ka yimid oo suurta gal ku siiyay inaan maanta orodka halka ka galo aadna waan ugu faraxsanahay macallinkayga ugu faraxsanahay maanta uu horeysay aan guuleystay anigoo tartan aan arbitaan sameyn kana socota gobolka Gabiley marka waan guuleystay alxamdulillah kaalinta koobaad baan galay ee hablaha u ciyaaray dadka deegaanka waxay arkayaan sida umar khayr bay sooranayaan gaar ahaan kuwii gobolka Gabiley ay daawanayeen marka adiguna fadhiga ka kacaya maadaama ay qeyrkeeda ay gashay kaalinta koobaad wasiirka dhalinta iyo ciyaaraha Somaliland mudane Boos Mire ayaa isaguna dhankiisa ka hadlay waa ordo diyaar garoobay muhiimadda ugu weyn ee inagu leenahay waxa weeyaan waxaanu leenahay opportunity bay leeyihiin dhalinyaradeenu in ordada ku soo baxaan iyagoo eeganaya bi'adaynu ku naallo iyo orodyahanadii hore ka soo baxay Somaliland oo kale dabeedna waxaanu leenahay rajo aad u weyn orodka waxaanu doonaynaa inaynu saarno culays fara badan siyaasaddan dowladdan waa caynka si dhalinyaradu ay dhalinyaro badan oo imika bay jira oo ama carabaha jooga ama Yurub jooga ama Mareykan jooga reer Somaliland baa jira kuwii kabi lahaa baa meesha laga doonayay inay ka soo baxaan hadii la yiraahdo waa Maxamed Andar